barnaamijkeennii falanqaynta dunida wararkii ugu dambeeyay caalamka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dagaalka ka dhanka kooxda Kurdiyiinta ay wadi doonaan ilaa ay ka gaaraan bartamaha iyo bariga dalkaasi Ciraaq. Madaxweynaha Erdogan ayaa ka hadlayay magaalada Ankara oo la hadlayay qaar ka mid ah xubnihiisa ururkiisa Akipart ayaa wuxuu sheegay in waxa ay doonayaan ay tahay in ay kooxda ugu yeeray argagixisada ay cagta mariyaan YPG isla markaana ay qabqabtaan. Wuxuu sheegay in dalkiisa uu istaagi doonin ilaa ay galaan buuri dalka ama ay gaaraan buuri dalka Ciraaq oo ay xaqiijiyaan amaankooda. dowladda dalkaasi Turkiga ayaa wada wali u duqeymo xooggan iyo dagaalo culus. dhanka kalena qoraal ah oo ay soo saareen ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Turkiga ayay waxay ku sheegeen in ku dhawaad 400 oo xubnood oo kooxda YPG ah ay ka dhigeen waxay dileen waxay qabteen iyo wax dhaawac. warka qoraalka ayaa lagu sheegay in 394 xubnood oo ah kooxda argagixisada ah baa la yiri PKK cilaaqaad kale leh iyo kooxda Daesh lagu laayay baa la yiri dagaalka dhulka ah ee ciidamada dalkaasi ay wadaan ee la yiraahdo Operation Olive Branch ka soconaya waqooyi galbeed dalkaasi Syria iyadoo haatan ay muuqato in dawladda dalkaasi militarigeedu ay qabsadeen gobolka Afrin inta badan isla markaana ay ka yeeriyeen kooxdii halkaasi sida wararku sheegayaan. dawladda dalkaasi militarigeeda ayaa sheegay haatan inay u jeesteen magaalada Manbij isla markaana ay soo koobi doonaan saacadaha soo socda sida ay sheegeen guud ahaan gobolka Afrin inay wada qabsadaan. dawladda dalkaasi Turkiga ayaa oo xuduud dheer la leh dalka Syria oo gaaraysa 910 kilomitir ayaa haatan waxay doonaysaa in ugu yaraan ay 150 kilomitir oo ammaan ay hesho. madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wuxuu ku gacan sayray baaqyada markaasi ay soo jeedinayaan dalalka reer galbeedka ee leh ama ay kaga codsanayaan in la soo koobo Make a Super Bowl sized ad for your Super Bowl party at Tostitos.com. talaabada military wuxuuna weydiiyay waxaan idin weydiinayaa buu seebaad u arki lahaydeen haddii dadkiina ku cibaadeysanayay buu kaniisadaha ay lala dhaco gantaalo isla markaana ay ku dhintaan dadkanada buu masaajidada ku tukanayay gobolka Hatay ayaa la laayay isla markaana gantaalo iyo markaasi madaafiic lagu soo gamay lala dhacay buu yiri taa daraadeedna ciidamada dalka iyagu isma taagi doonaan. militarigu haatan waxay sheegayaan in ay ku dhawaanayaan inta badan saldhigyada u haray kooxda ee gobolka waxayna sheegeen in saacadaha soo socda ee ugu dambeyn toddobaadkan dabadeeqadiisa ay ka gudbi doonaan inta badan difaacyada kooxdaasi oo ay sheegeen inay ku wareejin doonaan deegaanka inta badan kooxda markaasi ayaga garabka siinaya leeyahay Free Syria Army oo ah iyagu koox Arab Sunniina. halka nagala socotaan daawadayaal waa Hurfadhi Media wararkii ugu dambeeyay dunida. afayeenka madaxweynaha dalkaasi Turkiga Ibrahim Kalin asaguna wuxuu sheegay inay khadka telefoonka ku wada hadleen la taliyaha dhinaca istiraatiijiyadda qaranka ama dhinaca amniga aan iraahdo Mareykanka General HR McMaster. Ibrahim Kalin ayaa sheegay in labada xubnood ka wada hadleen qadiyadaha ugu dambeeyay sidii looga fogaa lahaa inay isdilaan labada ciidan ee Turkiga iyo Mareykanka. Mr. Kalin ayaa wuxuu sheegay in Mareykanku uu ballan qaaday inuu joojinayo inuu hubdaba siiyo kooxda PKK la leh markaas cilaaqaadka ee la yiraahdo Police Protection Units ama YPG. hadalka ka soo baxay markaas Ibrahim Kalin ayaa ku soo aadaya iyadoo oo ay socdeen wada hadallo aan kala go' lahayn ama xidhiidh aan kala go' lahayn oo labada dawladood ay doonayaan inay kaga hortagaan inuu dhaco dagaal ama iska horimaad xooggan. Ibrahim Kalin ayaa wuxuu sheegay in ay ku baraarujiyeen Mareykanka in loo baahan yahay talaabo degdeg ah la qaado oo sida ugu dhaqsaha badan loo qaado. sidoo kalena wuxuu sheegay inay ka wada hadleen McMaster iyo Mr. Kalin laftiisu howlgalka Operation Olive Branch ee asagu doonayo in markaasi talaabada ay noqoto mid kooban oo degdeg ah. wuxuu sheegay in wax kasta oo markaasi isfahan darro ahaa laga wada hadlay isla markaana